iyada oo ugu yaraan 505 la xaqiijiyay inuu dilay intii lagu guda jiray dagaalkii barafka ee 1939 ilaa 1940 ee u dhexeeyay Finland iyo Midoogii Soviet. Simohaya waxaa loogu magac daray ninka ugu dhimashada badnaa taariikhda, sidaas oo ugu guuleystay naanistiisa dhimashada cad. Simohaya wuxuu ku dhashay Juho iyo Katrina. Goobtan waxay ku taalay gobolkii hore ee Finland ee Kavalya oo hadda ah dhulkii Ruushka. Wuxuu ahaa nin beeraley ah xirfad ahaan, wuxuuna ku raaxaysan jiray riwaayadooyin kala duwan sida barafka, ugaadhsiga iyo toogashada. Haya wuxuu u dagaalamay Finland kana soo horjeestay Midoogii Soviet, wixii taariikh ahaan loo yaqaanay dagaalkii jiilaalka. Dagaalkii dhacay qaboobihii 1939 ilaa 1940. Dagaalkii qaboobaha ayaa qaxay markuu ahaa 33 sano jir. 17 Disembar 1939 waxa uu u dabaaldegay dhalashadiisii 34aad goobta dagaalka ee Kola. Wuxuu adeegay 98 maalmood isaga oo watay guutada 6aad, guutadaas oo loo yaqaanay Jabhadda Infantry Regiment 34. dagaalku wuxuu socday 105 maalmood kaliya, laakiin Simohaya ma uusan soo afjarin oo waa la dhaawacay. Isbitaal ayaana la dhigay isbuucii ugu dambeeyay ee iska horimaadka. intii loo guda jiray 98 maalmood ee xukunka hayay argagixisadu lama arag Haya oo lama maqal, welina wuxuu ahaa inta lagu beegsanayay askarta Ruushka ee si sax ah oo dilaa ah. mar xitaa wuxuu dilay 25 nin maalin iyadoo kuwa waxay ay ku soo bandhigayaan bartilmaameedyada qiimaha sare leh ee goobta dagaalka. Sumcadda Simo ee ah astaan weyn ayaa dhawaan soo gaadhay safafka hore ee Ruushka. waxaa lagu yeeri jiray dhimashada cad. dadka Ruushka ayaa iyaguna isku dayay inay dilaan ayagoo ku tooganaya qaab aan toos ahayn, madaafiic hoobiyayaal ah oo ku agdhawaa meeshiisa toogashada. laakiin nasiib darro, Haya lama dhaawacin mana dhiman isagoo ah xog la'aan. munaasabad kale oo madaafiica ayaa ku dhacay meel u dhow meeshiisii. rasaas laga furay waxayna kala jareen dhabarka jilibkiisa. Haya wuxuu ka badbaaday tan oo kaliya xog yar oo dhabarka ah. laakiin askariga ayaa waqti badan ku qaatay safka hore ee dagaalka. Haya ayaa wuxuu soo wariyay inuusan weligiis baqayn. wuxuu la dhaqmi jiray shaqadiisa sidoo la dhaqmo ugaarsiga kale. mar walbana wuxuu ku fikiri jiray qaab cusub oo lagu qarin karo cadowga. wuxuu soo saaray farsamooyin muhiim ah sida biyo ku shub barafka hortiisa si uusan qaabka muusikada uusan u kashifin meesha uu joogo. Haya ayaa wuxuu ku tirsanaa xusuustiisa si uu u helo meel wanaagsan oo lagu dhuuman karo. qorigiisa ayaa wuxuu ahaa M20 mid uu lahaa dagaalka kahor isagoona arag xataa qori telescopic ah. qorigani wuxuu ahaa mid loogu talagalay askarta Finishka ah. ka sokow xirfadahan, aabbaha Haya aabihiis ayaa wuxuu baray xirfadaha ugaarsadaha aad iyo aad ugu muhiima. xirfadaas oo ah masaafada. kani maahan xirfad uu ku dhashay, micnaha muusan kala soo bixin caloosha hooyadiis. wuxuu ku celcelin jiray tababar ugu horreyn isaga oo qiyaasay masaafada bartilmaameedka kadibna ku bixi lahaa tallaabooyinka. isaga oo leh dabeecad u gaar ah Simo iyo noloshiisa oo dhan ayaa waxay tahay nidaam u diyaargarow ah. wuxuu ahaa waardiye u noqoshada ciidamada Soviet ee keymaha jiilaalka ee Finland ilaa uu dhaawacmay 6 Maarso 1940. waxaa ku dhacay rasaas qarax ah intii lagu guda jiray weeraradii Ruushka. Haya wuxuu galay koomo. Haya wuxuu ka xanuunsaday wejiga oo xanuun joogto ah ayaa ka qabtay wejiga. Simohaya wuxuu ahaa isnaabarkii ugu guulaha badnaa ee eebig noolaa maxaa yeelay wuxuu fahmay wax kasta oo hareerihiisa ka socday. wuxuu ahaa nin xirfadle ah iyo ugaarsaday si sax u yaqaana sida loo dhuunto. qorigiisa wuxuu ahaa mid uu isticmaali jiray sanado badan uuna ogaa sida ay ugu falcelinayso jawigiisa. inta lagu guda jiray waraysiyo badan oo lala yeeshay isaga xilligiisa nolosha, mar walba wuxuu jeclaa inuu dadka xasuusiyo aragtidiisa ugu qaalisan.
dagaalku ma ahan khibrad raaxa leh ayuu dhihi jiray, laakiin yaa kale oo ilaalinaya dalkan haddii aanan annagu ilaalinaynin. dagaalka markuu soo dhammaaday, Heya wuxuu ku noqday beertiisii. kadib wacdaradii uu dagaalka ka geystay, Heya wuxuu noqday halyeey gudaha Finland oo wuxuu noqday nin caan ah, laakiin wuxuu ka doorbiday shirkadiisa. ma ahan wax adag in la fahmo sababtuusan u doonaynin inuu la macmilo kuwa kale intii lagama maarmaanka ahayd. ilaa uu wareegay macadka nadaafadda ee Veterans 2001 keligiis ayuu noolaa. wuxuu dhintay 2002 isagoo da'diisu tahay 96 sano jir. iyada aynu maanta joogno adduun zaa'id u horumarsan, weli lama helin ilaa u dhimahay